kasta waxbarashadu lagama daalo. Waa casharka labaad aan soo gelinay si ay ardayda Soomaaliyeed u fahmaan applicationada. Waa maashinta soo dhawaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي سود هذا وحنا كان كبر دونا عشرة امتحان نوع هاي وحنا ما تحبرنا جوجل ترانسليتر وحلي هذا على مدى اللي قرت محلي هذا سيلا أقون صدا الكيلو أقون صدا سوي هاي أيضا مكاس أي تاعي جوجل ترانسليتر يا وحرنا إن دتك وتصنع جوجل ترانسليتر كعلني فلارتا si loo garto mar labaad Google Translator waa kaasa afarta jiha ayaan ka siiyay si aad u garato Google Translator macnaha inaad fahantaan rabaa kaas weeyaan waan ka baxay marka waxaan siinayaa falaartii labaad si loo garto Google Translator waa kaas Google Translator muxuu yahay muxuu faa'iido leeyahay muxuu khasaare leeyahay horta faa'iidadiisu badan yahay qof kasta oo luqad ajnabi kula hadal lahay ama aad aqoonin ama qofkan luqadda ma taqaan Turkish ma taqaan oo ma taqaan Yahuud ma taqaan oo Spanish ma taqaan oo ma taqaan Mexico ma taqaan laakiin wax walba meel ku qoran qaab loogu gartaa jiro qaab wax loo garta ayaa jiro iyo qaab wax loogu macnaysto iska macnay maaha laakiin horta Google Play waxa Google Translator waxa laga soo helaa horta Google Play aan walaato si loo soo helaa qaabka loo helo aan fahansiyo halkaas ayaa waxaan ku qorinaa halkan waxaan ku qorinaa Google Translator ayaan ku qorinaa laakiin way farbadin laakiin mid ayaan ka dooran doonaa oo noogu muhiimsan aan gudubno aan qorno si loo arko Google Translator leedahay hata uu soo baxaba uu noo soo baxay anagoo qorno soo baxay waa kaasa asaga soo qabsanay isla automatic ahaan waa ka tagaysaa kaasa taabanaysaa wareegi hadda aniga update uu yahay si aan u update gareysto update waxa la marka xilliga la cusboonaysiinayo waa kaasa barnaamijkiisa marka rabto inaad warbixin badan rabto inaad ogaatana waxaad garaacaysaa meel yiraahdo ayaad garaacaysaa si information u hesho warbixin badan u hesho waxaad taabanaysaa falaartan hoose even light wax la mid oo dhan oo luqadaha wax lagu turjumo oo dhan meeshaas ayaa ka helaysaa kadib waxaad u soo gudbaysaa aniga wuxuu yahay update uu yahay waa fahanteen meel qaabka loo isticmaalayo waa qaabkan oo kale tab transfer of any application kasta taabo ku soo xiranaysaa shay meel yaalo oo meel qoraal ku qoran ayaad camera ku aadinaysaa oo ku macneynaa intaas arrimahaas oo kale le water waxyaabaha ku turjumay luqad Jarmal af Jarmal iyo af Japan oo ku kala fasiraa waa fahanteen ma lahado casharada socona waa ka gudbina insha Allah taala marka waxaan ka soo gudbinay Google Translator maxaa loo isticmaalaa qaabkeesa loo isticmaalaa inaan fahan aan isku dayno Google Translator marka taabato waxaa loo qaybiyaa ilaa 6 qaybood ilaa 6 qaybood ayaa loo qaybiyaa marka koowaad halkan waxa lagu qoraa meeshan kalena waxa lagu qoraa oo paste way markaad shay aad soo koobisto ama website ama meelaha wax ku aragto soo koobiya soo dhahe paste meeshan ku dhehsan meesha labada luqadood oo aad rabto inaad isku kala fasirtana waa meeshan hoose midan labaad oo socotana waxa waaye conversation anaga qadkaas nooma furno cod aad ayaa weydiinaysaa midda saddexaad midda kalena kamerada u furanaysaa video qoraal meel yaala aragtay ama tabeela aragtay intaas waaye waxaan ku horumarinaa marka cashirkeena koowaad waxaan ku horumari doonaa
casharkeena koowaad meeshaan ayaa waxaan ku qoraynaa tusaale ahaan tusaale qaadaynaa ani meeshaan waxaa igu qoran English iyo Soomaali waa kala bedelaynaa oo noo kala bedelay waxaan ku qoraynaa nin ereyga ugu horeeyo waa inuu capital letter yahay nin ayaan qornay waxaan rabaa English ahaan ayaan rabaa waana waxa waaye man waaye English ahaan waa man husband ninka naagta qaban nin ayaa la dhahaa ninka caadiga nin ay u yaqaanaan marka nin saasaa lagu yaqaanaa waxaan kaloo qoraynaa marka aragto inaad ka baxdo baagle iska dhehee haddaan taabano ereygan markaa sheegan kale inuu kaa baxa ayaa diidaysaa oo mar kasta inaad aragtaa rabtaa fallaarta halkaasaa saaraysanaysaa statigiska banaanka hore mar walba aad intaada soo gelin ka hor ayaa meeshaas ayuu ku saarnaanayaa cod ahaan haddaan rabna inaan u dhegeysana waa dhegeysan karnaa laakiin Soomaaliga ma ogolo laakiin Englishku ogol yahay codka aan dheereeyo waa maqlaysiin amalena qisa ayaan ku qoraynaa waa ka bixinaa waxaan leenahay nin ayaa wuxuu dilay nin kale nin ayaa waxa uu dilay nin kale haddaad jugsiga ka qaado ninka kale waa kala qaaday bis adal maana ku dhahaa hadduu noo kala macneeyey Soomaali ahaan hadda dile ma sheegayo laakiin English aan ugu macneen dhegeyso bal wuxuu dhahaa A man killed another man. A man killed another man. nin ayaa waxa uu dilay nin kale A man killed another man. a man killed another man nin ayaa dilay nin kale waa ku qornay waa ka gudbaynaa waxaan usii gudbaynaa tusaale waxaan gelaynaa shay meel waxaan loogu qoran ama Google aan tegaynaa Chrome ku kala taabanaynaa qisaan rabaa inaan soo qaato si aan uga ogaado marka warbixintan oo kale lii sheegay falaartan oo kale warbixintan oo kale lii sheegay ama waxaa iska dhahdaa history of حلها history of Obama على ذاك صالح Obama كل هذا Obama على سؤال صار يسمر كشيء ولا سؤال يودينيس life story of Obama ليش يسجل كيسة حياة قرن لكن أنا Obama life كيسة خاطس مركا wixii marka intay ku jiraan ma taqaanid waxaan oo dhan mashiikadid waxa ku qabanay marka gacanta saaraysa marka saarto shay wax qabanaysa waa kana marka screenshot oo ay ku qabanaysa tusaale screenshot ayaa ku qabatay waa yareynaysa marka inter arabto oo kibarka qoonay qabto ayaa yareynaysa intaan warbixinta intaan ka Obama niga suurkiisa xataa kama tagis intaan tawa gareeysay waxa ku qoran Barack Hussein Obama is the American politician who was served as the 44th president of the United States from the 1999 or to 2017 member of the Democratic
party. He was the first African American president of the United States. وسيف قريسنسا waad ka bixaysaa waxaa u aadinaa google translate kaatiina markaa meeshaan marayno ayaan waxaan rabnaa kaamirada ayaan taabanaynaa waxaan amarta kaamiradaas ayaa taabanaysaa wixii screenshot ayaa ku qaaday waa taabanaysaa markaa screenshot ku qabato waxaa haddana furanaysaa meeshaas oo boxeska ayaa taabanaysaa meeshaas kaamira ma taabanaysid meeshaas ayaa taabanaysaa kadib maxaa dhacaya waa furaysaa meeshii annaga aan rabnay waa la soo gaaray waa soo gashanay soo maha isla markii automatic ahaan wuu macaneeyey marka wuxuu ku leeyahay ma waxaa rabtaa meeshaan fiiriye meeshaan wuxuu ku leeyahay hoos ayuu warqad igu soo dhigay ma waxaa rabtaa inaad samayso yes aan dhehna marka aad bixinaysa yes aan dhehna taasi send of at home homeka u dir si weyn oo kaaga dhigaa oo lagu weynina asoo af Soomaali ma ku kana oo hooseeya Barack Obama may waxaan kala bedelinaa English iyo Soomaaliga sorry adi ada waxmaay kala bedelinaa English aan kala bedelnay soo baxsanay loo bedelay yes aan dhehna haddana send aan dhehna si waaweyn oo kaaga dhigaa waa siyaasi Mareykan ah oo noqday madaxweynihii afartanaad ee Mareykanka 2009 ilaa 2017 xubin ka tirsan xisbiga dimuqraadiga waa madaxweynihii ugu horeeyay ee Afrikaan Mareykanka ah ee Mareykankana marka shayga markaad gudaha soo geliso saas ku macnina automatic ahaan casharkeena intaan ku qaadanay waa ku mahadsantiin dhegeysiga aad mahadsantiin wixii qalada waxay igu soo sheegatay committee waxaana shardiya subscribe inaad sartaan oo ah diiwaangelinta like number inaad bixisaan waa lacagta laga harab lahaa markasta saas oo kale كومنت إنك كديبة رأيك أنا أوجد هذا ما ستاهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.